war iyo qayladhaan la filayay ka timaada wakiilada caalamiga ah ee arrimaha Soomaalida qaabilsan saldhigooduna yahay magaalada Muqdisho ayaa soo yeeray duhurnimadii maanta dhinac kasta oo saameyn ku leh arrinta siyaasadeed ee Soomaaliya waxa uu jeclaan lahaa in dhinaciisa ay u weecato oo isaga wax taageero gelinaya uu ku arko dhawaaqa wakiilada caalamiga ee arrinta Soomaaliya beesha caalamku waxa ay sii baahisay laba fariimood oo mid ay ka timid dawladda Mareykanka oo saameyn culus ku leh arrimaha gudaha ee Soomaaliya maadaama inta badan Mareykanku ay qayb lixaad ka ahaayeen hanaanka geedi socodka arrimaha Soomaaliya sidaas oo kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrinta Soomaalida oo isna dhinaca kale hogaaminaya wakiilada caalamiga oo Mareykanku uu qayb ka yahay waxa uu soo saaray qoraal kale oo yana ku muujinaya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sida loogu baahan yahay dhinacyadu jawaabo cad inay helaan waxaanu eegi doonaa si kooban nuxurka ilaa 5 qaybood oo ka mid ah fariimaha ka yimid Mareykanka iyo waliba sidoo kale wakiilada caalamiga wali warkoodu waxa uu laalan yahay urur goboleedka IGAD iyo midowga Afrika sida ay cadeynayaan xoguhuna midowga Afrika waxa ay baahin doonaan iyana war saxaafadeed aan wax badan ka duwanayn labada war saxaafadeed ee hadda aanu hayno marka koobaad beesha caalamku waxa ay sheegeen waa in ay ka muuqato inay wali aqoonsan yihiin hay'adaha dawladda la shaqaynayaan una muujinayaan inay Soomaalidu la shaqayso waxaana taasi ay ka soo horjeedaa bayaankii ka soo baxay xalay saqdi dhexe midowga musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya kaas oo ay musharaxiinta madaxweynenimo doonka ku cadeeyeen in farmaajo 4 sano ee muddaxileedkiisu ay dhamaatay uuna yahay qof shacab ah qodobka labaad waa in wada hadalka wali xalka uu ku jiro Soomaaliyadana ay tahay cidda laga sugayo inay wada hadasho xalna gaarto taasi waxa ay meesha ka saaraysaa wararkii iyo xogihii maalmihii u dambeeyay soo baxay oo sheegay in Soomaalida loo arrimin doono haddii ay arrinsan weyday qodobka saddexaad waa in doorashadu ay tahay xaq dastuuri oo si wadar ogol ah loo amba qaado taasi waa dalabkii ay jeedinayeen 5 bilood ee la soo dhaafay oo la sii adkeeyay waxaana lamaga huraan ah in Soomaalidu ay wadar ogol isugu timaado si doorashada ay dhinacyada siyaasadda ee ku hardamayahay go'aan midaysan u qaataan qodobka afraad waa in la qabto doorasho loo dhan yahay waxa ay ku celiyeen inaan la aqbalaynin doorasho kala qaybsan nidaam isbarbar socda iyo duminta nidaamka hadda jira waa jawaab kale oo iyana ku salaysan arrimaha ay kala jeclaan lahaayeen dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida midowga musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya waxa ay xalay cadeeyeen inay dhisayaan golaha ku-meergaarka ee qaranka taas oo sida qoraalka beesha caalamka ka muuqata ay dhinacyadu ka digayaan isbarbar socod iyo hanaanka hadda jira mid dhinac kale laga feer sameeyo qodobka shanaad waxay u rajeeyeen shacbiga Soomaaliyeed wada jir iyo inay amniga iyo xasiloonida ilaashadaan waxa kale oo qoraalka beesha caalamka ee labada dhinacba ka muuqda in beesha caalamku ay uga kalsooni iyo naxariis badan tahay Soomaaliya siyaasiyiinta u taagan xilka madaxtinimada ee Soomaaliya waxa ayna sheegeen in looga baahan yahay dhinacyadu inay muujiyaan danta qaranka oo ay ka tanaasulaan danaha gaarka ee shakhsiyaadka si looga gudbo waqtigan adag ee taagan waana qoraalka dawladda Mareykanku ay soo saartay sida lagu xusay dhabaha cusub ee hadda la aadayo durba dadku siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen macluumaadku waxa ay cadeynayaan in beesha caalamku ay dhinacyada Soomaalida mar kale isugu yeertay inay kulmaan isla markaana ay ka arrinsadaan tubta doorashooyinka iyo meelmarinta heshiiskii 17 Sebtembar ay ku iba fureen hanaanka doorasho ee dalka kaas oo aan wax ka bedel lahayn balse isaga lagu dul shaqeynayo oo la raacayo dhuusa mareeb waxa ay ku sifeeyeen in laga gaaray hanaan wanaagsan oo horumar laakiin qodobada dhiman ayay sheegeen inay tahay in la waafaqo oo la isku raaco sida ay macluumaadku tilmaamayaanna dhuusa mareeb waxa kaliya ee la isku mari waayo ayay ahayd arrinta gada oo ah caqabada Jubbaland iyo dawladda federaalka u dhaxaysa taas oo iyana wakiilada caalamiga waxoogu ay cadeynayaan inay doonayaan in durba go'aan laga gaaro
ka hor 4 maalmood ee nagu soo wajahan. war iyo qayladhaan la filayay ka timaada wakiilada caalamiga ee arrimaha Soomaalida qaabilsan saldhigooduna yahay magaalada Muqdisho ayaa soo yeeray duhurnimadii maanta. dhinac kasta oo saameyn ku leh arrinta siyaasadeed ee Soomaaliya waxa uu jeclaan lahaa in dhinaciisa ay u weecato oo isaga wax taageero gelinaya uu ku arko dhawaaqa wakiilada caalamiga ee arrinta Soomaaliya. beesha caalamku waxa ay sii baahisay 2 fariimood oo mid ay ka timid dawladda Mareykanka oo saameyn culus ku leh arrimaha gudaha ee Soomaaliya maadaama inta badan Mareykanku ay qayb lixaad ka ahaayeen hanaanka geedi socodka arrimaha Soomaaliya. sidaas oo kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrinta Soomaalida oo isna dhinaca kale hogaaminaya wakiilada caalamiga oo Mareykanku uu qayb ka yahay waxa uu soo saaray qoraal kale oo yana ku muujinaya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sida loogu baahan yahay dhinacyadu jawaabo cad inay helaan. waxaanu eegi doonaa si kooban nuxurka ilaa 5 qaybood oo ka mid ah fariimaha ka yimid Mareykanka iyo waliba sidoo kale wakiilada caalamigii. wali warkoodu waxa uu laalan yahay urur goboleedka IGAD iyo Midowga Afrika. sida ay cadaynayaan xoguhuna Midowga Afrika waxa ay baahin doonaan iyana war saxaafadeed aan wax badan ka duwanayn labada war saxaafadeed ee hadda aanu hayno. marka koobaad beesha caalamku waxa ay sheegeen waa in ay ka muuqato inay wali aqoonsan yihiin hay'adaha dawladda la shaqaynayaan una muujinayaan inay Soomaalidu la shaqayso. waxaana taasi ay ka soo horjeedaa bayaankii ka soo baxay xalay saqdi dhexe midowga musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya kaas oo ay musharaxiinta madaxweynenimo doonka ku cadeeyeen in farmaajo 4 sano ee muddaxileedkiisu ay dhamaatay uuna yahay qof shacab ah. qodobka labaad waa in wada hadalka wali xalka uu ku jiro Soomaaliyaduna ay tahay cidda laga sugayo inay wada hadasho xalna gaarto. taasi waxa ay meesha ka saaraysaa wararkii iyo xogihii maalmihii u dambeeyay soo baxay oo sheegay in Soomaalida loo arrimin doono haddii ay arrinsan weyday. qodobka saddexaad waa in doorashadu ay tahay xaq dastuuri oo si wadar ogol ah loo amba qaado. taasi waa dalabkii ay jeedinayeen 5 bilood ee la soo dhaafay oo la sii adkeeyay. waxaana lama huraan ah in Soomaalidu ay wadar ogol isugu timaado si doorashada ay dhinacyada siyaasadda ee ku hardamayahay go'aan midaysan u qaataan. qodobka afraadi waa in la qabto doorasho loo dhan yahay. waxa ay ku celiyeen inaan la aqbalaynin doorasho kala qaybsan nidaam isbarbar socda iyo duminta nidaamka hadda jira. waa jawaab kale oo iyana ku salaysan arrimaha ay kala jeclaan lahaayeen dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida. midowga musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya waxa ay xalay cadeeyeen inay dhisayaan golaha ku-meergaarka ee qaranka. taas oo sida qoraalka beesha caalamka ka muuqata ay dhinacyadu ka digayaan isbarbar socod iyo hanaanka hadda jira mid dhinac kale laga feer sameeyo. qodobka 5aad waxay u rajeeyeen shacbiga Soomaaliyeed wada jir iyo inay amniga iyo xasiloonida ilaashadaan. waxa kale oo qoraalka beesha caalamka ee labada dhinacba ka muuqda in beesha caalamku ay uga kalsooni iyo naxariis badan tahay Soomaaliya siyaasiyiinta u taagan xilka madaxtinimada ee Soomaaliya. waxa ayna sheegeen in looga baahan yahay dhinacyadu inay muujiyaan danta qaranka oo ay ka tanaasulaan danaha gaarka ee shakhsiyaadka si looga gudbo waqtigan adag ee taagan. waana qoraalka dawladda Mareykanku ay soo saartay sida lagu xusay. dhabbaha cusub ee hadda la aadayo durba dadku siyaabo kala duwan ayay uga falceliyeen. macluumaadku waxa ay cadaynayaan in beesha caalamku ay dhinacyada Soomaalida mar kale isugu yeertay inay kulmaan isla markaana ay ka arrinsadaan tubta doorashooyinka iyo meelmarinta heshiiskii 17 Sebtembar ay ku iba fureen hanaanka doorasho ee dalka kaas oo aan wax ka bedel lahayn balse isaga lagu dul shaqeynayo oo la raacayo. dhuusa mareeb waxa ay ku sifeeyeen in laga gaaray hanaan wanaagsan oo horumar laakiin qodobada dhiman ayay sheegeen inay tahay in la waafaqo oo la isku raaco. sida ay macluumaadku tilmaamayaanna
dhuusamareeb waxa kaliya ee la isku mari waayo ayay ahayd arrinta gada oo ah caqabadda Jubbaland iyo dawladda federaalka u dhaxaysa taas oo ayana wakiilada caalamiga waxoogu hay cadeynayaan inay doonayaan in durba go'aan laga gaaro ka hor 4 maalmood ee nagu soo wajahan war iyo qayladhaan la filayay ka timaada wakiilada caalamiga ee arrimaha Soomaalida qaabilsan saldhigooduna yahay magaalada Muqdisho ayaa soo yeeray duhurnimadii maanta dhinac kasta oo saameyn ku leh arrinta siyaasadeed ee Soomaaliya waxa uu jeclaan lahaa in dhinaciisa ay u weecato oo isaga wax taageero gelinaya uu ku arko dhawaaqa wakiilada caalamiga ee arrinta Soomaaliya beesha caalamku waxa ay sii baahisay 2 fariimood oo mid ay ka timid dawladda Mareykanka oo saameyn culus ku leh arrimaha gudaha ee Soomaaliya maadaama inta badan Mareykanku ay qayb lixaad la ka ahaayeen hanaanka geedi socodka arrimaha Soomaaliya sidaas oo kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrinta Soomaalida oo isna dhinaca kale hogaaminaya wakiilada caalamiga oo Mareykanku uu qayb ka yahay waxa uu soo saaray qoraal kale oo yana ku muujinaya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sida loogu baahan yahay dhinacyadu jawaabo cad inay helaan waxaanu eegi doonaa si kooban nuxurka ilaa 5 qaybood oo kamid ah fariimaha ka yimid Mareykanka iyo waliba sidoo kale wakiilada caalamiga wali warkoodu waxa uu laalan yahay urur goboleedka IGAD iyo Midowga Afrika sida ay cadeynayaan xoguhu Midowga Afrika waxa ay baahin doonaan iyana war saxaafadeed aan wax badan ka duwanayn labada war saxaafadeed ee hadda aanu hayno marka koobaad beesha caalamku waxa ay sheegeen waa in ay ka muuqato inay wali aqoonsan yihiin hay'adaha dawladda la shaqeynayaan una muujinayaan inay Soomaalidu la shaqeyso waxaana taasi ay ka soo horjeedaa bayaankii ka soo baxay xalay saqdi dhexe midowga musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya kaas oo ay musharaxiinta madaxweynenimo doonka ku cadeeyeen in farmaajo 4 sano ee muddaxileedkiisu ay dhamaatay uuna yahay qof shacab ah qodobka labaad waa in wada hadalka wali xalka uu ku jiro Soomaaliyaduna ay tahay cid laga sugayo inay wada hadasho xalna gaarto taasi waxa ay meesha ka saaraysaa wararkii iyo xogihii maalmihii u dambeeyay soo baxay oo sheegay in Soomaalida loo arrimin doono haddii ay arrinsan weyday qodobka saddexaad waa in doorashadu ay tahay xaq dastuuri oo si wadar ogola loo amba qaado taasi waa dalabkii ay jeedinayeen 5 bilood ee la soo dhaafay oo la sii adkeeyay waxaana lamaga huraan ah in Soomaalidu ay wadar ogol isugu timaado si doorashada ay dhinacyada siyaasadda ee ku hardamayahay go'aan midaysan u qaataan qodobka afraadi waa in la qabto doorasho loo dhan yahay waxa ay ku celiyeen inaan la aqbalaynin doorasho kala qaybsan nidaam isbarbar socda iyo duminta nidaamka hadda jira waa jawaab kale oo iyana ku salaysan arrimaha ay kala jeclaan lahaayeen dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida midowga musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya waxa ay xalay cadeeyeen inay dhisayaan golaha ku-meergaarka ee qaranka taas oo sida qoraalka beesha caalamka ka muuqata ay dhinacyadu ka digayaan isbarbar socod iyo hanaanka hadda jira mid dhinac kale laga feer sameeyo qodobka shanaad waxay u rajeeyeen shacbiga Soomaaliyeed wada jir iyo inay amniga iyo xasiloonida ilaashadaan waxa kale oo qoraalka beesha caalamka ee labada dhinacba ka muuqda in beesha caalamku ay uga kalsooni iyo naxariis badan tahay Soomaaliya siyaasiyiinta u taagan xilka madaxtinimada ee Soomaaliya waxa ayna sheegeen in looga baahan yahay dhinacyadu inay muujiyaan danta qaranka oo ay ka tanaasulaan danaha gaarka ee shakhsiyaadka si looga gudbo waqtigan adag ee taagan waana qoraalka dawladda Mareykanku ay soo saartay sida lagu xusay dhabaha cusub ee hadda la aadayo durba dadku siyaabo kala duwan ay uga falceliyeen macluumaadku waxa ay cadeynayaan in beesha caalamku ay dhinacyada Soomaalida mar kale isugu yeertay inay kulmaan isla markaana ay ka arrinsadaan tubta doorashooyinka iyo meelmarinta heshiiskii 17 Sebtembar ay ku iba fureen hanaanka doorasho ee dalka kaas oo aan wax ka bedel lahayn
balse isaga lagu dul shaqaynayo oo la raacayo. dhuusamareeb waxa ay ku sifeeyeen in laga gaaray hannaan wanaagsan oo horumar, laakiin qodobada dhiman ayay sheegeen inay tahay in la waafaqo oo laysku raaco. sida ay macluumaadku tilmaamayaanna dhuusamareeb waxa keliya ee laysku mari waayo ayay ahayd arrinta gada oo ah caqabadda Jubbaland iyo dowladda federaalka u dhaxaysa, taas oo iyana wakiilada caalamigii waxoogu ay caddaynayaan inay doonayaan in durba go'aan laga gaaro ka hor 4 maalmood ee nagu soo wajahan. war iyo qayladhaan la filayay ka timaada wakiilada caalamiga ee arrimaha Soomaalida qaabilsan saldhigooduna yahay magaalada Muqdisho ayaa soo yeeray duhurnimadii maanta. dhinac kasta oo saamayn ku leh arrinta siyaasadeed ee Soomaaliya waxa uu jeclaan lahaa in dhinaciisa ay u weecato oo isaga wax taageero gelinaya uu ku arko dhawaaqa wakiilada caalamiga ee arrinta Soomaaliya. beesha caalamku waxa ay sii baahisay 2 fariimood oo mid ay ka timid dowladda Mareykanka oo saamayn culus ku leh arrimaha gudaha ee Soomaaliya, maadaama inta badan Mareykanku ay qayb lixaad ka ahaayeen hannaanka geedi socodka arrimaha Soomaaliya. sidaas oo kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrinta Soomaalida oo isna dhinaca kale hogaaminaya wakiilada caalamiga oo Mareykanku uu qayb ka yahay, waxa uu soo saaray qoraal kale oo yana ku muujinaya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sida loogu baahan yahay dhinacyadu jawaabo cad inay helaan. waxaannu eegi doonnaa si kooban nuxurka ilaa 5 qaybood oo ka mid ah fariimaha ka yimid Mareykanka iyo weliba sidoo kale wakiilada caalamigii. weli warkoodu waxa uu laalan yahay urur goboleedka IGAD iyo Midowga Afrika. sida ay caddaynayaan xoguhuna Midowga Afrika waxa ay baahin doonaan iyana war saxaafadeed aan wax badan ka duwanayn 2 war saxaafadeed ee hadda aanu hayno. marka koobaad, beesha caalamku waxa ay sheegeen waa in ay ka muuqato inay weli aqoonsan yihiin hay'adaha dawladda, la shaqaynayaan una muujinayaan inay Soomaalidu la shaqayso. waxaana taasi ay ka soo horjeedaa bayaankii ka soo baxay xalay saqdi dhexe midowga musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya, kaas oo ay musharaxiinta madaxweynenimo doonka ku caddeeyeen in farmaajo 4 sano ee muddaxileedkiisu ay dhammaatay uuna yahay qof shacab ah. qodobka labaad waa in wada hadalka weli xalka uu ku jiro Soomaaliyaduna ay tahay cidda laga sugayo inay wada hadasho xalna gaarto. taasi waxa ay meesha ka saaraysaa wararkii iyo xogihii maalmihii u dambeeyay soo baxay oo sheegay in Soomaalida loo arrimin doono haddii ay arrinsan weyday. qodobka saddexaad waa in doorashadu ay tahay xaq dastuuriya oo si wadar ogola loo amba qaado. taasi waa dalabkii ay jeedinayeen 5 bilood ee la soo dhaafay oo la sii adkeeyey. waxaana lama huraan ah in Soomaalidu ay wadar ogol isugu timaado si doorashada ay dhinacyada siyaasadda ee ku hardamayahay go'aan midaysan u qaataan. qodobka afraad waa in la qabto doorasho loo dhan yahay. waxa ay ku celiyeen inaan la aqbalaynin doorasho kala qaybsan, nidaam isbarbar socda iyo duminta nidaamka hadda jira. waa jawaab kale oo iyana ku salaysan arrimaha ay kala jeclaan lahaayeen dhinacyada siyaasadda ee Soomaalida. midowga musharaxiinta madaxtinimada ee Soomaaliya waxa ay xalay caddeeyeen inay dhisayaan golaha ku-meergaarka ee qaranka, taas oo sida qoraalka beesha caalamka ka muuqata ay dhinacyadu ka digayaan isbarbar socod iyo hannaanka hadda jira mid dhinac kale laga feer sameeyo. qodobka 5aad waxay u rajeeyeen shacbiga Soomaaliyeed wada jir iyo inay amniga iyo xasiloonida ilaashadaan. waxa kale oo qoraalka beesha caalamka ee labada dhinacba ka muuqda in beesha caalamku ay uga kalsooni iyo naxariis badan tahay Soomaaliya siyaasiyiinta u taagan xilka madaxtinimada ee Soomaaliya. waxa ayna sheegeen in looga baahan yahay dhinacyadu inay muujiyaan danta qaranka oo ay ka tanaasulaan danaha gaarka ee shakhsiyaadka si looga gudbo wakhtigan adag ee taagan. waana qoraalka dowladda Mareykanku ay soo saartay sida lagu xusay. dhabbaha cusub ee hadda la aadayo durba dadku siyaabo kala duwan ayay uga falceliyeen. macluumaadku waxa ay caddaynayaan
in beesha caalamku ay dhinacyada Soomaalida mar kale isugu yeertay inay kulmaan isla markaana ay ka arrinsadaan tubta doorashooyinka iyo meelmarinta heshiiskii 17 Sebtembar ay ku iba fureen hanaanka doorasho ee dalka kaas oo aan wax ka bedel lahayn balse isaga lagu dul shaqeynayo oo la raacayo dhuusa mareeb waxa ay ku sifeeyeen in laga gaaray hanaan wanaagsan oo horumar laakiin qodobada dhiman ayay sheegeen inay tahay in la waafaqo oo la isku raaco sida ay macluumaadku tilmaamayaanna dhuusa mareeb waxa kaliya ee la isku mari waayo ayay ahayd arrinta gada oo ah caqabada Jubbaland iyo dawladda federaalka u dhaxaysa taas oo ayana wakiilada caalamiga ah wuxuu ay cadeynayaan inay doonayaan in durba go'aan laga gaaro ka hor 4 maalmood ee nagu soo wajahan